بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أحد كوبيا لباتنك بشا سبتمبر سنة لبكون لباتن يشن أو كوبيغن سقال لباتنك بش الربيع الأول سنة كن أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي حلشة دوراركا قضبدا ساك برامجك آن إذي كوغو هينانا وحا كمدا إيران أو وعد كمرتي إن أي كبحي دونتو هشيسك مهمكا nuclearka haddii la dhaqan geliyo go'aanka dib cunaqabataynta loogu soo rogayo madaxweynaha Iiraan oo isna daboolka ka qaaday inaysan madaxa hoos u foorarin doonin oo ay ka gudbi doonaan caqabad kasta wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa Israa'iil oo laga bilaabay abaabul ku aadan sidii loo dhisi lahaa xukuumad bedesha tan Netanyahu iyadoo ay xoogaysanayaan khilaafyada heerka dhanka siyaasadda bulshada iyo ciidanka ee gudaha Israa'iil banaanbaxyo waaweyn oo xalay ruxay magaalooyinka Israa'iil iyadoo meelaha lagu mudaharaadayna uu ka mid yahay guriga Netanyahu qadar oo raaligelin ka dalbatay Israa'iil ka hor inta aysan dib u bilaabin qorshaha dhexdhexaadinta dagaalka Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista muslimiinta waddanka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa inay ka cabanayaan midab faquuq iyo cunsuriyad xooggan oo lagu hayo Donald Trump wuxuu xusul dub ugu jiraa in la guddoonsiiyo abaalmarinta nabadda ee Nobelka laakiin su'aashu waxa ay tahay miyuu istaahilaa warbixin xiise leh ayaan idinkaga haynaa amuurtaasi dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclearka Iiraan ayaa ka sii daraysa iyadoo dhawaana war ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu sheegay in dib loo soo celinayo 28ka bishan August cunaqabataynta ka dhankahayd Iiraan haddii aan la gaarin heshiis oo Iiraan aysan ka soo bixin wasadalka loo dhigay ballan qaadyadii ay horay u gashay haddaba isagoo arrimahani ka hadlaya madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa ballan qaaday in Iiraan ay ka hor imaan doonto dib u soo celinta cunaqabataynta kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu codeeyay in aan si rasmi ahayn loo qaado cunaqabataynta in dib loo soo celiyo cunaqabataynta waxay ka macno tahay in ay xireen wadahadalkii laakiin taasi waxay ku xiran tahay aqliyad in la yimaadaan oo ah in wadadii wadahadalka la furo ama ay xirmaan ayuu yiri Pezeshkian isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri waa in aynu aaminsanaanaa inaan ka gudbi karno caqabadahan iyo kuwa xumaanta inala jecel ay inala doonayaan kuwaasi oo doonaya in waddankeena ay ka joojiyaan wadada aynu ku soconno waa wax aan suurtagal ahayn in la joojiyo kuwa leh hammi go'aan adag iyo awood ay ku horumaraan werigeen ma aynan jilcin oo mana jilci doonno dalabaad xaddaaf ah oo naloo soo jeediyo sababtoo ah waxaan awood u leenahay in aan ka gudubno caqabad kasta ayuu yiri madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa carabka ku adkeeyay in cadowgu uu awoodi karo in uu burburiyo guulaha cilmiga ee Iiraan laakiin wuxuu yiri qobradeena iyo saynisyahanadeenna waa kuwa dhisay xarumahan iyaguna waa hantida dhabta ah ee qaranka wuxuu sheegay in reer galbeedku aysan joojin karin wadada horumarka ee Iiraan ay ku socoto hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Iiraan ayaa waxa uu yimid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go'aamiyay jimcihii in dib loo soo celiyo cunaqabataynta ka dhanka Tehran kadib soo jeedin ka timid Britain Faransiiska iyo Jarmalka iyagoo ku eedeeyay Iiraan
inay ku guuldaraysatay inay u hoggaansato heshiiskii nuclearka ee 2015 isla markaasna ay ku howlan tahay samaysashada hub nuclear ah. Iiraan geeska ayay gelisay eedeymahaasi waxaana ay sheegtay inaysan damacsanayn horumarinta hubka nuclearka. war kale oo arrimahan la xiriira golaha ammaanka qaranka ee dalka Iiraan ayaa xalay ka digay in Tehran ay joojin doonto wada shaqaynta ay la leedahay hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA haddii dib loo soo celiyo cunaqabataynta qaramada midoobay kadib markii golaha ammaanka uu ansixiyay inta labadaasi la abaaro. bayaan lagu baahiyay telefishinka dowladda ayaa goluhu waxa uu sheegay in ay u arkaan go'aanka qaramada midoobay ee ay soo jeediyeen Faransiiska, UK iyo Jarmalka mid aan keeni doonin xalka. waxaana ay sheegeen intaasi u muuqanayso in si dadban cunaqabataynta loogu soo rogayo Iiraan, taasi oo ay sheegeen inay dhaawici doonto wada shaqaynta hay'adda, taas oo noqon doonta in markaa si rasmi ah loo joojiyo dhammaanba wada shaqaynta. golaha sare ee amniga qaranka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in arrimahani ay yihiin kuwa u baahan in laga fiirsado. kulanka golaha oo shir gudoominayay madaxweyne Mas'uud Pezeshkian ayaa lagu falanqeeyay arrinta cunaqabataynta sida lagu sheegay bayaanka. intii lagu guda jiray kulanka waxay ka wada hadleen mas'uuliyiinta tillaabooyinka aan laga fiirsan ee ay qaadeen saddexda wadan ee reer Yurub ee la xiriira faylka nuclearka Iiraan. bayaanka ayaa waxay taasi ku daray in inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay la shaqaysay hay'adda IAEA isla markaasna ay soo gudbisay talooyin lagu xaliili karo faylkan, haddana dhaqdhaqaaqyada dalalka Yurub ayaa si dhab ah u riixaya geedi socodka in la hakiyo hawsha hay'adda IAEA ay ka wado gudaha dalka Iiraan. waa tahay qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno. dalka Faransiiska markan aynu eegno halkaasi oo muslimiinta ku dhaqan wadankaasi lagu soo waramayo in ay sheegeen faquuq iyo cusuriid in lagu hayo. arrintani waxay ku timid daraasad soo baxday oo warbixin laga diyaariyay. Cabdifataax Muurid Xaaji Cabdi ayaa warkan inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya. daraasad uu sameeyay macadka IFOP oo uu taageero masjidka weyn ee Paris ayaa shaaca ka qaaday noocyada kala duwan ee takoorka ay la kulmaan muslimiinta ku nool Faransiiska, waxaana natiijadu noqotay mid argagax leh iyadoo xaqiijisay in islaam naceebku sii kordhayo sida uu sheegay wargeyska Faransiiska ee Jeune Afrique. su'aasha daraasadda ayaa ahayd mid toos ah: ma u malaynaysaa inaad dibana u noqotay hab dhaqan cunsuriyad ah 5 sano ee la soo dhaafay? 66% muslimiinta Faransiiska ayaa ku jawaabay haa. dhanka kale 18% dadka haysta diimaha kale kama badna dadka sheegay inay la kulmaan falal cunsuriyad ah. sida laga soo xigtay natiijooyinka daraasadda, kalabar muslimiinta sheegay in cunsuriyad loo geystay waxay sababta ka dhigeen diintooda, kuwa kale waxay sabab uga dhigeen jinsiyadooda dhabta ah, kuwaasi oo tiradoodu tahay 25%, halka 22% ay qabaan in ay cunsuriyad ula kulmaan sababo la xiriira midabkooda. tirooyinka ay soo saartay xarunta kormeerka takoorka muslimiinta ee Faransiiska oo la shaaciyay 16 bishan September ayaa xaqiijinaya in muuqaalka arrintani uu si joogto ah u ballaaranayo, waxaana mas'uuliyiinta warbixinta ay door bideen isticmaalka ereyga muslim naceebka si ay u muujiyaan in bartilmaameedku yahay qofka muslimka ah ama qof loo arko muslim iyadoon loo eegin caqiidada uu qabo. cilmi baarayaashu waxay ku tiirsanayeen sahana telefoon lagu sameeyay taasi oo lagu wareystay 1500 oo qof oo muslimiin ah iyo su'aal weydiin internetka ah oo ay ka qayb galeen qiyaastii 1000 muslimiin ku nool Faransiiska sanadkii 2023 iyadoon loo eegin dhalashadooda. wargeyska Jeune Afrique ayaa sheegay in daraasadu buuxisay farqi ay kooxaha ka hortagga cunsuriyadda muddo dheer ka cabanayeen, maadaama tirakoobka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ay tirinayeen kaliya cabashooyinka weerarada ka dhanka ah muslimiinta. waxaa yaab leh in oo kaliya 66% ka mid ah ka qaybgalayaasha ay sheegeen in ay gudbin lahaayeen cabasho haddii la takooray, boqolayduna waxay hoos ugu dhacdaa 58% marka laga hadlayo kuwa horay ula kulmay takoorka ku salaysan diinta. meelaha ugu badan ee takoorku ka dhaco waxaa ka mid ah baaritaanka aqoonsiga ee booliiska ku salaysan muuqaalka qof iyo marka la raadinayo shaqo ama guri kiro ama iib ah.
mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay bishii Luulyo in faraalka ka dhanka ah muslimiinta ee la diiwaan geliyay ilaa bartamihii 2025 ay kordheen 75% marka loo eego sanadkii hore, iyadoo weerarada dadka lagu beegsado ay 3 laab noqdeen. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in 145 fal oo ka dhan ah muslimiinta la diiwaan geliyay 5 bilood ee ugu horeeyay sanadkan, halka ay ahaayeen 83 isla muddadaas sanadkii 2024. tirada weerarada lagu qaaday shakhsiyaadka ayaa korortay 209%, iyadoo gaartay 99 guud ahaan, halka ay ahaayeen 32 weerar isla muddadaas sanadkii 2024, taas oo ka dhigan in ka badan 2 meelood 2 meel falalka ka dhanka ah muslimiinta, sida uu sheegay ilo xogogaal ah. Cabdifataax Muriid Xaji Cabdi, HBN Online TV. وهجاج عبد الفتاح أدبو ما حسين warbixintaas halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza qadar oo raali gelin ka doonaysa Israa'iil. waxaan kaloo idin haynaa barnaamijyo xalay ruuxay gudaha Israa'iil. Donald Trump ma u qalmaa in la guddoonsiyo abaalmarinta Nobelka ee ay bixiyaan guddiga dalka reer Norway. laakiin intaan u gudbin wararkaas iyo kuwa kale aynu ku hakanno qadar xayisiina. Qari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca, ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit, oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. soo dhawaada mar kale daawadayaal. weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Axadda toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter ama X iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa tahay xagga Gaza aynu haatan jaleecno halkaasi oo dagaalka Mareykanka ka socda ee Israa'iil ay wado uu ku sii dhow yahay 720 maalmood. xalay ilaa iyo shalay dad aad u fara badan ayaa lagu dilay Mareykanka Gaza. tirada dhimashadu 100 qof ayay ku sii dhowdahay. militariga Israa'iil ayaa wada duqeyn aan kala sooc iyo kala joogsi lahayn. laakiin sida khibradu ay sheegayso, ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay gelin lahayn fooda goobaha lagu tuhunsan yahay dagaalyahanada ama dagaalamayaasha iska caabinta ee Falastiiniyiinta. dhinaca kale, barnaamijyo ballaaran ayaa habeennimadii xalay ruuxay gudaha Israa'iil, iyadoo lagu soo waramayo in booliisku ay isku dayeen in ay xanibaan barnaamijyaasha oo ku socday guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, sida ay ku waramayso jariirada iyo Dicoot Ahronoot. waxaana la sheegay in barnaamijyadu ay ka socdeen gebi ahaan Israa'iil oo idil. arrintan waxay timid iyadoo shalay gelikii dambe dagaalamayaasha Al-Qassam garabka military ee ururka Hamas ay soo bandhigeen sawirada maxaabiista lagu haysto Mareykanka Gaza oo ay sheegeen in la macsalaamaynayo, taasoo ka macnaha inay ku dhimanayaan duulaanka Netanyahu uu wado. arrintaasi ayaa waxay dhalisay
qaracan walwal iyo walbahaar culus oo gudaha Israa'iil ka jira isla Israa'iilteena ka bixin koox siyaasiyiin ayaa waxaa la sheegayaa inay diyaarinayaan qorshe lagu dhisayo xukuumadda xigta ee bedelaysa Netanyahu siyaasiyiintan waxaa ka mid ah Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eisenkot iyo Yair Golan waxaana la sheegay inay ku dhawaaqeen in ay go'aansadeen samaynta guddi cusub oo dejin doona jihada dowladda xigta ay u soconayso bayaan ay wadajir u soo saareen ayaa waxay ku yiraahdeen waxaan go'aansanay in aan samayno guddi dejin doona qaabka dowladdu u ekaan doonto mustaqbalka guddigu wuxuu qeexi doonaa xeerarka adeega militariga iyo aqoonsiga Israa'iil oo ahaan doona dal Yahuud dimuqraadi ah isla markaasna Sahiyuuniyada go'aankan ayaa loo arkaa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu qorsheynayo qaab dhismeedka siyaasadeed ee Israa'iil iyadoo la filayo in dood kulul ay ka dhalato arrimaha lagu qeexayo aqoonsiga dalka iyo adeega ciidanka qaranka wargeyska iyo Yadda'ut Ahronot ayaa sidoo kale waxa uu qorayaa in arrimahani ay u muuqanayaan in ay isbahaysanayaan mucaaradka Netanyahu sheekadii waxay noo soo socota Donald Trump ma u qalmaa in la siiyo abaalmarinta nabadda adduunka ee ay bixiyaan guddiga reer Norway intaan u gudbin sheekadaas aynu haatan eegno dhanka magaalada Doha ee dalka Qatar shabakada Axios ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa waxa ay xalay faafisay war ay ku sheegayso in dowladda waddanka Qatar ay dalbatay raaligelin uga timaada Israa'iil oo la xiriira weerarkii 9kii bishan Israa'iil ay ku qaaday xarumo ku yaal magaalada Doha iyadoo Israa'iil ku fashilantay in ay beegsato hogaamiyaasha ururka Hamas duqeyntaasi oo dishay 5 xubnood oo ka tirsan Hamas iyo sarkaal Qatar u dhashay ayaa waxay xiisad ka dhaxdhalisay labada dhinac isla markaasna waxay hakisay wadaxaajoodkii socday sida ay qortay Axios Qatar waxay u badantay inay aqbali doonto raaligelin xadidan oo diiradda saarta geerida sarkaalka qadariga ah iyo damaanad ku saabsan ilaalinta madaxbannaanideeda ma rabto markaa in arrintaasi si buuxda ay caqabad ugu noqoto qorshaha lagu doonayo dagaalka in lagu soo gabagabeeyo maxaabiistana lagu soo afjaro waynu arki doonaa haddii Netanyahu arrintaasi uu aqbalo waaye madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusal dum ugu jiraa sidii ugu guuleysan lahaa abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobelka loo yaqaan wuxuu ku andacooday in uu mudan yahay in la guddoonsiiyo abaalmarintaasi isagoo sheegaya inuu ku guuleystay inuu joojiyay dagaalo fara badan sida hadalka u dhigay laakiin Trump waxa cambaar wajiga uga taal ah ballanqaadkiisii ahaa haddii doorashada ku guuleysto in 24 saac gudahood dagaalka Ukraine uu kusoo gabagabeyn doono laakiin ku dhawaad sanad markii la doortay dagaalku hadduuba sii labalixaadsaday waxyaalaha kale ee fashilka u keenay ee lugaha dhiiqada u geliyay Netanyahu Trump waxa ka mid ah dagaalka Netanyahu ka wada Mareykanka Gaza haddaba Trump ma u qalmaa in la guddoonsiyo abaalmarinta nabadda ee Nobelka warbixin arrintan ku aadan oo uu qoray wargeys ka soo baxa dalka Faransiiska waxa soo jeedinaya Yahya Ciise wargeyska Le Figaro ee ka soo baxa Faransiiska ayaa su'aal geliyay mudnaanta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u leeyahay abaalmarinta nabadda ee Nobel 2025 abaalmarintan oo uu Trump si joogto ah u muujinayo inuu doonayo warbixin uu wargeyska ku qoray qoraaga Reno Gerard ayaa waxa uu ku sheegay inuusan aaminsaneyn in Trump inkasta uu leeyahay niyad dhab ah oo nabadeed haddana uusan gaarin wax natiijo muuqda oo u adeegaya nabadda caalamka oo soo jiidan kara xubnaha guddiga Nobel ee bixinaya abaalmarinta ballanqaadkiisii xilwareejinta khudbadiisii xilwareejinta ee 20kii Janaayo 2025 Trump waxa uu ballan qaaday inuusan kicin doonin dagaal cusub balse sidoo kale uu dhammayn doono colaadaha ka socda dunida xaasidnimo Gerard waxa uu sheegay in Trump uusan weligiis qarin rabitaankiisa ku aadan abaalmarinta Nobel taasi oo ku saleysan xaasidnimo uu ka qaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka ee dhinaca dimuqraadiga Barack Obama oo ku guuleystay sanadkii 2009 bilowgii muddaxileedkiisii hore Trump waxa uu aaminsan yahay in Obama uusan u qalmin abaalmarinta maadaama uusan wax muuqda qabanin ee uu kaliya jeediyay khudbad weyn oo 4 Janaayo 2009 uu ka jeediyay magaalada Qaahira isagoo ballan qaaday inuu xallin doono khilaafaadka Falastiin iyo Israa'iil balse taasi aysan hirgelin
Gerard waxa uu qiray in guddigii Nobel ee 2009 ay ku degdegeen siinta Obama abaalmarinta iyadoo lagu qiimeeyay taariikh nololeedkiisa iyo niyad wanaagiisa, balse ma filayo in sidaas la sameeyo 2025 oo Trump uu heli doono. Natiijooyin aan muuqanin. Qoraagu waxa uu warbixintiisa ku sheegay in uu sheegayo Trump inuu neceb yahay dhiigga iyo dagaalka, waxa uu door bidaa ganacsiyada iyo heshiisyada halkii uu dagaalka geli lahaa. laakiin mushkiladu waxay tahay in 8 bilood kadib markii uu xafiiska ku soo laabtay uusan weli soo bandhigin wax natiijo muuqda ah oo nabadeed oo lagu qancin karo guddiga Nobel. Trump waxa uu ku celceliyay ololihiisii doorashada inuu hal maalin ku dhameyn karo colaadda, balse taasi weli ma aysan dhicin. marka la barbar dhigo maamulkii Joe Biden ee ku adkaystay mowqifka adag ee ka dhanka ahaa Moscow, Trump waxa uu doortay jid kale oo ka soo horjeeda, isaga oo u soo bandhigay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin caadiyen buuxda oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka, taasi oo beddelkeedana uu ka doonayay xabad joojin dhinaca Ukraine ah. taas waxa ay la macno tahay dhamaadka dhammaan cunaqabateenada Mareykanka ee Ruushka, taasi oo sidoo kale horseedi lahayd in Europe aysan mar kale cusboonaysiinin cunaqabateenadeeda. waxa kale oo Ruushka ka dhalan lahaa heshiisyo shidaal oo waaweyn, gaar ahaan Arctic-ga iyo meelo kale. iska iloobida Gaza. dagaalka labaad ee la filayay in Trump uu soo afjaro waa kan Israa'iil ay ka wado Gaza oo socday ku dhawaad 2 sanadood. Trump waxa uu muujiyay xiisaha dagaalka Gaza, isaga oo xitaa soo jeediyay mashruuciisa dalxiis ee lagu xalinayo dhibaatada Gaza, balse waa uu dayacay arrintaasi isagoo u arkay mid adag sida uu qoraagu sheegay. qoraagu waxa uu xusay in Trump uusan garowsanin hirgelinta nabadda oo u baahan dadaal iyo dulqaad badan. waxa uu tusaale u soo qaatay Henry Kissinger oo ku guuleystay 1970-yadii xalintii khilaafkii Vietnam iyo xiriirkii Shiinaha. Netanyahu oo ka baxay gacanta. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah saaxiib iyo ardayga siyaasadeed ee Trump uu leeyahay ayaa ka baxay gacanta, isagoo xitaa weeraray Qatar, wadan hormuud u ahaa dhexdhexaadinta Xamaas si loo gaaro xabad joojinta Gaza. Trump baa og in saaxiibadiisa mowqifeed ee Israa'iil ay burburiyeen heshiiskii Abraham, kaasi oo ahaa guushii diblomaasiyadeed ee ugu weyneed ee xilligiisii hore, kaas oo aan la dafiri karin. wargeysku waxa uu warbixintiisa ku sheegay in Trump uusan ku guuleysanin midna Yurub iyo Bariga Dhexe, sidaa darteed uma qalmo abaalmarinta nabadda ee Nobel 2025. hase yeeshee, qoraagu ma diidana suurtagalnimada in Trump uu ku guuleysan karo abaalmarintan sanadka 2026 haddii uu muujiyo dulqaad iyo shaqo adag oo uu qayb ka qaato xalinta mid ka mid ah khilaafyada waaweyn, dhibaatada Ukraine ama khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. Yaxya Ciise, HBN Online TV. waatahay yaxye aad buu mahadsan yahay. warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii subaxnimo ee xulashada wararka oo aad kala socoteen warbaahinta HBN Online. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waxaad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgeli. siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika. haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi, noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay, waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi. siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika. dahabyada uu iibinayo waxaa ka mid ah Bahrayn, Singapore, Hindi designs. waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba, waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada. Macrifa Academy, saldhigii quraanka iyo suubanay diinteenna, siradii rasuulka iyo axaadiista sugan iyo saxnaanshaha caqiidada, halka aan ka sugayno si wacan noo barayso. saldhigii islaamka waa Macrifa Academy oo sahal kuu bari doonto, online kuugu saxayso, saacad walba aad heli doonto. ee sidaas haatan ogowo Macrifa saaxiib laahow. Macrifa Academy. akaademiyadda Macrifa waxa ay bixisaa casharada quraanka kariimka, axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam, sirada rasuulka, caqiidada, higaada luqadda carabiga. waxaana ay gaar la tahay Macrifa Academy casharadu waxa ay ku baxayaan 3 luqadood oo kala ah Soomaali, Arabic iyo English. ku baro quraanka iyo culumta shariicada islaamka adigoo gurigaaga jooga. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.